shir looga arinsanayay xeerka Machadka Qaran ee Dowladaha Hoose ayaa Muqdisho ku soo gabagaboobay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku soo gabagabaysay kulan wada tashiga ahaa oo looga arinsanayay xeerka Machadka Qaran ee Dowladaha Hoose. Shirkan maalintiisa labaad ayaa waxaa soo xiray Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Ambassador Cabdixakiin Xasan Ashkir, isagoo khudbad u jeediyay ku sheegay muhiimadda uu xeerka u leeyahay dowlad dhiska Soomaaliya, isagoo ku taliyay in lagu dadaalo heshiis wadar oggol ah ka hor hirgelintiisa. maanta iyo shalay 7 bisha iyo 8 bisha September hawl muhiim ah ayaad halkan ka qabateen. runtii Machadka Qaran Dowladaha Hoose waa institution ama mu'assasad ka midan dowladnimadeena xoojinaysa, dhisaysa, adkeynaysa, u baahan in ay inoo soo saarto khubaro iyo dad waxgal ah oo dowladnimada iyo taabagelinteeda qayb muhiim ah ka qaata. marka inaad isu timaadeen aad uga doodeen maskaxdiina iyo garaadkiina tuujiseen aanad gaarteen heer aad isla soo dhaweysaan ama aad isla fahantaan mawaadiicdii iyo qodobadii aad ka doodeyseen aad iyo aad ayay noogu tahay sharaf. idinkuna runtii waad ku amaanan tihiin. dowladda federaalka iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka go'an isku wadka iyo wada shaqaynta hay'adaha kala duwan heer federaal iyo heer dowlad goboleed si aynu u gaarno natiijo lagu xisaabtami karo oo waxtar u leh dowladnimadeena. marka xeerkan oo kamida shuruuc badan oo aan mustaqbalka ka wada shaqayn doono dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada wuxuu inoo yahay bilow halkan maaragtay aynu ku bilownay leadershipka iyo hoggaanka wasaaraduna si buuxda ayuu u aaminsan yahay inaynu awoodeena u dhaadhicino ilaa heer degmo, heer dowlad goboleed ilaa heer federaal, ama mararka qaarkood cagsi ay heer federaal ka bilaabanayso ilaa deegaanada ugu hooseeya aynu ka gaarayno. cid keligeed wax qaban karta ma jirto. dhammaanteen waxaa ina wada faran inaynu hawshan iyo howlaha kale aynu iskugu imaan doono wada xoojino, adkayno. shaqada had iyo jeer federaalku waa tashiilaad iyo inuu maaragtay awoodii si u dhaxeeyo si santara ama dhexdhexaada ugu qaybiyo dowlad goboleedyadii oo maaragtay wax walba ay ku dhamaadaan consensus iyo wadar oggol. mudanayaal aad baa u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa inay ahayd sharaf. siyaasadda dowladda iyo xukuumadduna waxa weeyaan in la wada shaqeeyo, inaynu wax walba aynu miiska saarno, gorfayno, ka wada hadallo, kadibna aynu go'aamo aynu u dhannahay aynu ka gaarno hadduu Ilaahay yiraahdo.